waxa Ilaahay lagu dhawaan bishaan waxa kamid ah ama ugu fadli badan in wax la sadaqaysto oo dadka baahidooda wax laga qabto ayaa ugu muhiimsan. sadaqadu fadli dheeraad ay leedahay. sadaqadu waxa weeye qofka muslimka ah maalinta qiyaame oo qorraxdu ay kulushahay oo dhibaatadu ay badan tahay waxa la harsanayo oo qof kasta uu ku baxsanayo inta meesha la taagan yahay waa sadaqadiisa la yiri. tan kale sadaqadu sinuu saasan oo sheegay sadaqadu Ilaahay subhanahu wa ta'ala caradiisa ayay damisaaba la yiri. marka dambiga aan galayno oo iska tira badnaan kara oo carada Ilaahay keeni kara subhanahu wa ta'ala carada Ilaahay waxa lagu dambi kara oo meesha laga saari karo waa sadaqada weey. sadaqadu waa shay qaali ah oo qofka aan ka faa'iideysan asagoo aan tabar hayn ayuu rajaynayaa inuu wax sadaqaysto. hadduu wax sadaqaysan lahaa buu tamaninayaa ama rajaynayaa. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu noo sheegay in inta la nool yahay laga faa'iideysto nolosha waxa la haysana waxa laga bixiyo inta aysan geeridu imaanin. wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'ti ahadakum al-maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ورمضة waxay yiraahaan qofka markuu geerida la kulmayo saan oranaya wuxuu oranayaa ilaahu dib ii dhig aan wax sadaqayste. Muuse orag baa la yiri aan tukadee ama aan soome. maxaa yeelay sadaqada qiimaheeda buu arkayaa baa la yiri. marka jaaniska sadaqada uu dhaafay hadii loo soo celin lahaa buu tamaninayaa. sadaqada waxa weeyana guud ahaan waxa u fadli badan waxa loo yaqaan sadaqa al-jaariya sadaqada joogtada ah.